كيشنادي وداها عادي وما دhalي karto waa in qalliin ay ku dhashaa laakiin dadka da'da age-kaas oo dhalinyarada waxa u badan cuduradan galmada la iska qaadsiiyo markaysa marka ay diido waxa kamid ah inaysan dumarku uurka qaadinin wax jira caanaha naaska ay siinayso badanaa 2 sano ilaa caadi ahaan diinta xataa way sheegaysaa badanaa ma qaado haddii uusan ninkii gabadhi waxba ka qaban karin waxay xaq u leedahay inay ka tagto ma taqaanaa shareecaduna waa u banaynaysaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتها هودنا نقل سعودتها مال كستو الدنيا كجوكتان كسولو هذا برنامج كليد نايت شو إيه مركلة أنو برنامج كان عاوي إن شاء الله تعالى هدي لهي لهذو أنو كوكا ذا ديك دونو مهمة دا إلا ذا هي سيدي لو غهرتي لها عذر كلويق أنو بريس كانسركا أما هو يضع أمينانت الصوماليات الناس كو كانسر أو غلو يلي باتدو ليه هي يسيدي لو غهرتكو يوحا لو قرتو waxaan maanta la soo sheegay 2 gabdhood oo dalkii Soomaaliya jooga oo labadaba xanuunka laga helay dhawaan ay cid haba yaraatay u maciinana aysan jirinin barnaamijkan ayaa aniga shakhsiyan wuxuu ii leeyahay dareen gooniya kadib markii sanad iyo bar ka hor inaanu saaxiibanahay ay xaaskiisa ugu dhimatay magaalada London Allah subhanahu wa ta'ala jannadii ha ka waraabiyo isagana sabir iyo iimaan ka siiyo daba hooyada Soomaaliyeed ayaanu fiirinaynaa caaw insha Allah ta'ala barnaamijkan iyo sida ay uga qayb qaadan karaan wacyigelinta arinta ayada ku wajahan sidii looga hortagi lahaa waxaa idinku soo socda sawirro aad iyo aad u xoog badan oo powerful ah qaarkood filan ay yihiin qaarkoodna ay yihiin sawirro taagan oo marka aanu jeclayna nagala qayb qaadataan barnaamijka waxaan idiin sheegayaa barnaamijka Late Night Show xiliyadan oo kale markuu soo galo sawirrada uu wato mararka qaarkood caruurta yararka uma fiicneen ay arkaan soo waxay ku xiran tahay waalidiintii guryaha jooga inay ka taxadaraan ilmahooda waxay daawanayaan anagana xil wuxuu naga saarayaan idiin sheegno inay sawirrada ayada soo socdaan inta kadib sanadkiiba waxa la yiri wadamadan Yurub oo dhan marka la isku geeyo 245,000 oo qof ayuu cudurka ku dhacay oo dumar ah iyo waliba ragana uu ku dhacaa laakiin dib baanu ka taaban doonaa ragana 150 qof oo ku dhacana hal ayaa kamid ah rag ah lidaalka waxaad arki doontaan rag naasaha la jaray oo xanuunka laga gooyay waxyaalaha u keenay iyo sida ugu dhacana dib ayaad ka ogaan doontaan barnaamijkeena caawa waxaanu idiin furnay khadka taleefanka twitterka iyo waliba emailka a.xafila.tv/universal iyo waliba twitterka barnaamijkan uu leeyahay waanu jecelnahay insha Allah ta'ala inaan nagala qayb qaadataan su'aalo galabta qaarkii noo soo direen oo haya doctorkana oo gudbinaya hadii Ilaahay yiraahdo ugu dambeynta barnaamijkan waxaad ku dhageysan doontaan ogeysiis yar oo ku saabsan labadii barnaamij ee labadii isbuuc oo la soo dhaafay halkan ka baxay laakiin ka caaw halkan ogama hadlayno waxaanu ka hadli doonaa insha Allah ta'ala breast cancer-ka laakiin fariinta marka u dambeysay ayaan soo gudbin doonaa ku wajahan labadii barnaamij ee wiiga hore halkan ka baxay ee ku saabsanaa faraxumeynta carruurta yar loo geysto hadii Allahu jalla jalaaluhu yiraahdo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan uga mahad celinayaa barnaamijkan caawa baxay iyo kuwii ka horeeyay Dr. Abdullah Mansour Dr. Abshir Abdullah Mansour oo asagoo halkan la jooga caawa insha Allah ta'ala sawiradan iyo barnaamijkan isugu keen soo dibaraday oo aan jecelnahay waqtigiisa oo nasiinaan uga mahad celino Dr. aad baan ku soo dhaweynaya mar labaad iyo mar saddexaad aad ayaa u mahadsantahay Cabdi Xaafid adiga iyo bahda Universal TV wahagaag marka u horeysa waa maxay breast cancer okay Cabdi Xaafid kansarka caadi ahaan waa marka unugyada anaga jirkeen wuxuu ka samaysan yahay unugyo aad u tiro badan marka oo qofka uu yar yahay unugyadaas aad ayay u koraan ilaa uu ka qangaarayo ama uu 20 sano soo gaarayo marka uu soo gaaro xogaa ayaa unugyada tartiib ay oo socdaan waa la kontroolaa mararka qaarkood ayaa waxa dhacda in unugyada ay ka baxsadaan kontroolkii sabab far badan oo jiraan taasa waxay keenaysaa in uu kansar uu sameysmo breast cancer-ka wuxuu ka mid yahay kansarada ku dhaca jirka dadka bini'aadamka ah gaar ahaan naagaha ayuu aad ugu badan yahay nimankan waa saa hore u sheegtayna sababa jiraan oo aan sheegi doono ayagana uu ku dhici karaa breast cancer-ku waa kansar ku dhaca naaska oo maxaan ku dhahaa aad halistiisa ay u badan tahay unugyadii oo controlka dhumiya oo faafa metastasis waxa la dhahay sameyn kara dhaqsi marka la ogaanayo
in haweenku ay qabto kansar iyo marka maxaan ku dhahaa metastasis uu sameynaya ama faafay oo ay isu dhowdahay. marka laakiin waxaa aad akhbaar wanaagsan u ah, waxaa lagula jiraa dagaal aad u badan taasoo gaarsiisay hadda in lala dagaalamo oo maxaan ku dhahaa la yareeyo. haddii la ogaado waqtiga ugu horeysa waxaan ay bilaabanayaan, haddii la ogaado in maxaan la yidhahdaa laga hortegi karo. laakiin markii ay uu daaho ama qofkii qarsato ama ay laba noqoto wuxuu keeni karaa dhimasho ayuu keeni karaa. saa u sheegtayba 40 daqiiqo hal qof u dhinta adduunka. marka breast cancerka waa unugyada oo ka samaysan yahay naaska haweenka, waxay ka samaysan yihiin dufan iyo qanjir. qanjirka asna wuxuu leeyahay tubooyinkaas oo hadhow caanaha qaadaya loogu talagalay. organkan ilaaha wuxuu ugu talagalay, wuxuu ka mid yahay organada reproductive ama maxaa la dhahaa cunuga in caanaha lagu siiyo haweenka quruxdooda. wax badan ayuu macnaha uu ka qayb qaadanaya, waana muhiim. organ aad dhiig badan u jooga waaye, dhaqsi oo samayn kara haddii unugyada ay mashaakil qabaan in meel kale aadi karaan. cudurkaanu dumarka madow iyo dumarka cadba uu ku wada dhacaa, laakiin waxyaalo badan bay ku kala duwan yihiin. maxaa ka mid ah? cudurkan waxaa aad ugu badan yahay haweenka cadaanka ah. maxaa la yidhahdaa wuu ku yaryahay haweenka madowga ah, laakiin marka uu ku dhaco haweenka madowga ah way u dhintaan. lama yaqaano sababtana looma yaqaano. haweenka cadaanka ah sida loo malaynayo waxaa la qaatay xadaarad ka duwan xadaaradii. naagihii waxay noqdeen, haweenkii waxay noqdeen nimankii oo kale waa la shaqeeyaa, stressa ku dhaca, ma guursadaan dhaqsi, organkii ma qabanayo shaqadii, bil walba caadadii ku dhacayso. hawshii loogu talagalay naaskii oo qaban lahaa caruur in caano lagu siiyo wixii ma jiraan. sigaara bilowday, alcoholaa bilaabatay, obesity culeysaa bilowday, maxaan ku dhahaa daawooyinka qaar ka mid ah. wixii dhan markay isku dardarsamaan ay isticmaalaan ayaa waxaa la arkay in haweenka cadaanka ah uu aad ugu badan yahay, laakiin haweenka madowga uu ku yaryahay. laakiin hadduu haween madow uu ku dhacona inuu halista ay badan tahay u dhimanayso. hagaag hooyada ilmaha naaska nuujisa, okay, si kale u dhigo. hooyooyin waxaa jira ayagoo weyn guursada dabadeedna dhala, ama ayagoo yarba guursada laakiin ilmuhu dib ay ka yimaadaan. riskigooda ma ka badan yahay kuwa yaraanta ku guursada markiiba ilaahay awlaad ku arsaaqo? aad iyo aad ayay uga xiran tahay arintaas. waxaa la arkay haweenka aana guursanin ama haweenka markii la gaaro 30 iyo wixii kasii dambeeya 40 ee ku dhalayaan in halista ay aad dabal ay sii tahay in uu ku dhaco kansarkan, way sii zaaidinaysaa. laakiin gabadha yar oo dhaqso guursato oo dhalmo bilowdo waxaa la arkay maxaan ku dhahaa in uu difaaco. sababtoo ah dhecaan ayaa jira lasoo saaro oo bil walba u keena caadada. kaas wuxuu asagana maxaan ku dhahaa la falgalaa oo u tagaa naasaha uu diyaariyaa si cunug inuu soo socdo oo kale. waana bararaa naagta markii ay caadada ay ku dhici rabto, waana xanuunaan qaar ka mid ah. kaas markii haweenka ay uur yeeshaan 9 bilood oo dhan dheecaankaas lama soo daynaya, marka way ka nasanaysaa stimulationkii fara badnaa maxaan ku dhahaa u imaanayay ama hormoonadii soo saarayeen ayay ka nasanaysaa. taasaana u sababa. waa gartay. marka si kale haddaanu dhigno, haddaan ku fahmay doctore, 9 biloodoo hooyadu ay urka leedahay xanuunkaas kuma dhacayo, maxaa yeelay dhacaankii ay soo dayn lahaa ee dhiigga watay bishiiba imaanayay aad iyo aad ma jira kaasu. hawshii kalaa socota oo ilmihii loo diyaarinaya hawl kalaa socoto. so taasi way difaacaysaa hooyada. hooyada way difaacaysaa aad iyo aad. waa gartay. waxaan kaloo rabay inaan ku weydiiyo, waxaad sheegtay dadka iyagoo waaweyn guursada ama ilmo dhala. ka waran haddii qofka uu yaryahay laakiin hooyo ay u dhimatay oo kale oo dhaxaltooye ma noqon karaa? aad iyo aad fatoorahaas very important waa hadda aad ka dhawaajisay. maxaa la yidhahdaa waxaa jiro jeenayaal ama hidde oo DNA-da Soomaalida aad ay u taqaana. DNA-da marka dadka la soo kaxaynaya DNA laga qaadaa in cunuga ninka uu dhalay in kale DNA-da way yaqaana. DNA-da qayb ka mid ah haddii uu ku dhaco oo isbedel uu ku dhaco, gaar ahaan BRCA1 iyo BRCA2 kuwa jeenayaal la dhaho, waxay soo saaraan borotiin difaaca in kansarka naaska uu imaado. waxaa laga helay Angelina Jolie aktarad la yiraahdo, labadaba actor ayadaa laga helay. marka waa iyadii hooyadeedna way u dhimatay,
maxaan ku dhahaa habaryartii u dhimatay jaab waa dhakhtarii la consultation la samaysay waxay go-aan gaartay in labadaba laga jaro naasaha marka naasihi waa laga jiray maadaama hooyadu dhimatay si looga hortago xanuunkaas kansarkaas inuusan u imaan marka taas waxay ku tusaysaa in geneticada ay roolaha number 1 ay ka ciyaarto dhaxalka number 1 inuu ka ciyaaro marka haddii qofka ay ku jirto familkiisa qof ka mid ah ama hooyo ha noqoto ama walaal ha noqoto ama ayeeye ha noqoto haddii kansar uu kusoo dhacay waa in si aad iyo aad looga digtoonaadaa oo loo kontaroolaa waa gartay ragga iyo maxaa ka dhaxeeya kansarka naaska ku dhacay waxaa jiro rag qaar ka mid ah oo ku dhacay 2010kii waxaa la arkay UK 400 oo nin inuu ku dhacay waxaana sabab u ah oo keeni kara marka in ninku uu ku dhaco mashaakilaad kala duwanaa jiro waxaa horta maxaa la dhahaa dadka oo prostate problem qabaan oo hormones la sii dhacaan hormoonka dhacaanka naagaha la siiyaa kaas wuxuu keenaa in naaskii uu maxaan ku dhahaa proliferation ama uu bato ama naas ay samaysmo hadhowna uu isbedelo oon ku dhaho cancer inuu isu bedelo markii annaga caadi ahaan ilaahay nooguma talagalin inaan naasa yeelano marka kaas number 1 waaye tan labaad oo keeni karta waxa waaye beerka waa laboratory kiimikada ee qofka bini aadanka ah ee sifaysa sun kasta iyo wax kasta sifaysa haddii beerka uu ka jiro cirrhosis oo kale ama yaraado ama waxa uusan shaqadii gudanaynin dhacaano qaar ka mid ah haweenka ay leeyihiin annagana aan qabno oo laakiin cadadooda aad u yar tahay ayaana la bedelaynin kuwaas waxay keenayaan haddii aan la bedelin xagga laga soo kontaroolin ayaa waxay keeni karaan inuu naas uu qofkii uu usoo baxo hadhowna haddana mashaakilkii uu meesha uu ka imaado waxaa jira genetica dhaxal ayaga laftirkooda iyo cudurro oo yaryar oo maxaan ku dhahaa oo markii ay lasoo foojignoodaan ayagana ay keeni karaan waxaa jira daawooyin haddii la isticmaalo oo ayagana ay keeni karaan marka arrimaha oo u keenayo ayaga tirada ay ka badan yihiin nimanka inuu ku dhaco sahalka qofka uguma dhacaya ninka ah marka waxa ugu horeeyana waa laga jarayaa sida looga badbaadiyo maxaan ku dhahaa cudurkan inuusan faafin uusan gelin tan kale marka uu mid ku dhaco tan kale inuu u gudbo 4% way badan tahay oo midka kale uu dhaqsi u gudbi karaa meeshan wadnaha loo dhow yahay dhiig fara badana meesha imaanayo communication-kana wuu jirayaa hagaag doctor aad baa mahadsan tahay daawadayaal waxaan inagu soo socda sawiro jecelahay mar dhow in ay aad arki doontaan insha allahu tacaala sawiradaas waan dulmari doonaa doctorka noo dulmari doona balse waxaan jeclahay markaan khadka telefonka inaan oga qeyb qaadataan wixii su-aalaha ku saabsan mawduuca waanu ka hadlayno oo ah breast cancer amase kansarka ku dhaca naasaha kaga dhaca dumarka iyo ragga oo cadad yara uu doctorka ku tilmaamay waxaan jeclahay markaan khadka telefonka soo gashaan fadlan inaan ismaqalno because waqti fara badan uma hayo inaan ismaqli weyno halow ma imaqashaan isniraahno dabadeedna qof tala la siin lahaa ama su-aal muhiima qabay oo halkaa ka baxo qofka u horeeya assalaamu calaykum waraxmatullah hagaag waxaa la yiri khadadka telefonku maba furnayn laakiin dibba hallo assalaamu calaykum وعليكم السلام عبد حافظ سيتاي الحمد لله عمي سو دhow magaca والله يا عبد حافظ magacayga cabdishakuur xasan baa la yiraahdaa dalka Norway baan joogaa hay cabdishakuur soo dhow marka aad baad u mahadsan tahay barnaamijkan iyo barnaamijyo badan oo waxaan arkay macnaha dadka aad ku wacyigelinaysid marka aad bay u fiican tahay adiguna ilaahay ajir xasanaad ilaahay ka siiyo sometimes macnaha waxyaabo oo badan baa jiro macnaha aan arkay oo khaasatan si private ah inaan ku soo wacaan rabay laakiin way ii suurtageli weyday xataa maanta xataa waan soo wacay si aan contactiga ku helo marka dhakhtarka waxaan weydiin lahaa macnaha siyaabaha oo lagu garto macnaha kansarka markuu dumarka ku imaanayo siyaabaha lagu garto oo lagu ogaanayo macnaha sidee baa lagu ogaan karaa inaad noo weydiiso dhakhtarka waa gartay cabdishakuur khayr allah ku siiyo walaalkay aad baan kugu mahad celinaa nagala qeyb qaadatid haddii aad rabtid inaad ila soo xiriirtid adiga iyo qof kaleba insha allahu tacaala sida ugu sahlan oo layla soo xiriiraa waxay tahay a.xafid@tvuniversal.net amase waxaad igala soo xiriiri kartaa aalada twitterka insha allahu tacaala khayr badan allah ku siiyo insha allah hadduu ilaah yiraahdo arrin private aan doonaya inaan kagala hadlo insha allah sidaasaan kugu xiriiri doonaa hadduu ilaah yiraahdo
وهاجاك walaalkay khayr Allah ku siiyo doctor intaad u gudbin xaraa laba qof oo kale inaan siiyo dabadna isku ka soo gudbiyo qof kale oo ku xigay salaam alaykum hello السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ سولو بقى وحالي هذا حسين اللي رواكي سولو walaalkay حسين ودكتور خلو انا اذا كل قيب قاطع ارجع لها برنامج كعاو سولو او حاربي برنامجكم فورما كجرا hawada ku jirta حسين waa ku maqalnaa السلام عليكم عبد الحافظ عليكم السلام عمي سولو وحاربا ان هذه كل قيب قاطع وحا هاي تختار كو تخصصي ما عيد وحي ارمها دحلتويدا dhaxaltooyada xanuunada la kala dhaxla ka wada ها شذا مقعد كانسركا وحا دكتورك وحو كهدلاي نمانكا كودعا مقعد كانسركا ناسا كودعا نمانكا وحي اقول دعا مركا او كدلت قريشن جينك لي هذا براكا 1 ام براكا 2 مركاس اي وحي مادين مقعد نمانكا اي كودعا ناغا مركا او كدلت قريشن جاي براكا 1 ام براكا 2 هل حبتو كدلت قريشن ناغا مركاس اي كودعا براكا جين او اني ديني مركا دامج كو كودعو اي ريبير غريا ساس درتيد ايا كينتا marka waxaa idin sheegayaa oo aan sameyna hadda waxaa jira wadanka Sacuudiga waxaa ka shaqeyn jira wadanka UK waxaa bilaabnay inaan sameyno whole genome DNA sequence Soomaalida ugu horeysay oo DNA sequence genome ka dhan oo inaan sameyno ayaa bilaabay taas ayaa idin sheegaya aan idin kugu soo kordhinay ilaa hadda yiraahdo 5 qofood ugu horeysay oo Soomaali DNA sequence in aan hadda sameeyay oo lab waxa magaceeda departmentiga headka ahay ka sameeyay Soomaali fara badan oo waxa ka sameeyay waxyaabo arrimo badan oo kansarka iyo jirooyin ku dhaco dhiiga ayaa ka baarnay marka arintaas ay sheegana marka arinta uu sheegay dhakhtarka ee ahayd in ay afrikaanta u dhintaan waxay tahay cadiinka iyo afrikaanka way kala gadsan yihiin waxaa jirta magaceeda combinama variance meesha ay cadaanka jirada ay ka qabaan mutationka inuu afrikaanta uu ka gadsan yahay marka daawada loo soo saarayo afrikaanta ay wax u taraynin marka wuxuu u baahan tahay baaritaan dheeraad loo sameeyo dadka afrikaanta marka dadkooda ayaa ka hurdo waxaa jeclaan lahay in loo sameeyo baaritaan dheeraada waxawaaye dad walbo ama family walbo af Soomaalida ama dadka kale way ka gadsan yihiin marka taas ayaa idin ku soo kordhin walaalkay aad baa mahadsantahay حسين السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله وهاجاك qof kale oo ku xigay السلام عليكم hello hello السلام عليكم hello السلام عليكم عليكم السلام soo dhawaad magaca hello ha magacaygu waa Nuura hay Nuura soo dhaw xagee joogtaa London aan joogaa maxaa jeceshahay inaad weydiiso dhakhtarka لو سألها لو سأل كم كود محاوية حد كورة هاورتي إذا كود متى كانسر وقرتي لكن كانسر كبير كود متى and only how is it they were sisters from the father so what's the possibility or أنا not so good by the genetic way and second question محاوية حنون كانسر كبرس كسر لوكال كسر because قبلها قار محاجر مكو عالو كدا حنون قبط ناس حنونان نورا ها كوي رجل خدك تلفونك ku jiriya okay way دكتور maqashay labada half weeyaan wad maqashay half sister bay tiri inan yar way possibility-ga inay genetically u dhaxasho intee uu leeyahay marka la qiyaaso Nura haya habaryar iyo hooyo isku aabi isku hooyo ma isku aabale waa isku hooyo ma asaas aan fahmay على كل حال هديب او genetically waxa meesha ay soo galaan waxa aad u wanaagsan in la controlo ay check up ay sameeyo screening waxa jira mammography waxa jira biopsy la sameeyo sample inay sameeyo tan kale ay sheegaysa xanuunka caadada ah kaas haweenka oo dhan badan oo u dhaxeeya kuna uu ku yaryaada qaarna uu ku badan yahay xanuunka zaid uu qabtaa marka wax iska normal ah oo ma la dhihi karo markuu caadada ay soo dhowdahay naasaha xogaa bararayaan xanuunka qabanayaan lama dhihi karo kansar waay waxyaabaha aan rabay inaan sheego ayay ka mid tahay oo inaysan naxin ama aysan ka hadii uu naaska malax ay gasho oo kale waa arin aad u sahlan oo aan ahayn kansar ahayn waxa jiro kuwa kale tumoryaal yar oo fibroma la dhaha ama cyst wax la dhaha oo naasaha oo ku dhaca kuwaas oo dhan kansar ma aha laakiin waa la jagreeyaa waa la hagaajiyaa waana la daaweeyaa marka maadaama ay jirto wax genetic ah waxa wanaagsan in control ay sameeyso daadana way ku xiran tahay Nora waa maqlay I think you're satisfied tahay okay thank you very much you're welcome bye bye
hagaag sawiradan jecel inuu noo soo daayo insha Allah taala calnaaji oo ninkii horena weydiiyey calaamadaha masawirada way ku jiraan waxa sheegaysaa Cabdishakuur Norway calaamaduhuna weydiinayay sawirada ay ku dhex jiraan marka xabad aan u sharaxaynaa hagaag Cabdishakuur iyo reer Norway insha Allah taala waxaad daawan doontaa sawirada soo socda fartiin culusna Norway kaga haya barnaamijka markuu dhamaado insha Allah taala muhiim hagaag sawirada ugu soo socdaan balse khadka telefoonka salaamu calaykum hello hello السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله هذا تي في اسكنا قصة كورة waad ka naaqasay TV-ga walaashay gabar iga yar oo walaashay tayroora laga qalay marka dhuuntii waxaa la yiri waa wixii ay hilibkay ka gooyeen way baareen waxay dhahan kansar waay dhuunta marka burooyin badan oo trikliyana way ka qaleen oo macnaha kansarkaasi jirkaaga dhan oo ku jira ay dhaheen marka daawooyin badan ay siiyeen maasha Allah waa hadda xaaladeedu waa iska fiicanta isniinta xaroona maanta xataa guriga cirbad ay ku dureen isniinta waxay waa ku karantiideena 4 bari kaniiniga ku siinayna oo waxaas jirkaaga si virus amana jirkaaga uga bixinayna marka kaniiniga ka walwalsanaa Mondayda oo bari dambe xaroonay 3 bisha marka dhakhtarkan weydiilay kaniinigaas ay siinayaan wax barbalem uu keenaa okay khadka ku yara jir doctor thyroid waay thyroid كسر دكتور وتايرويد واي تايرويد asagana waa qanjir ku yaala dhuunta oo soo daya T3 T4 horaan uga hadalnay marka daawooyinka ay siinayaan maxaan ku dhahaa kansarka haduu faafa khatar waay marka in oo loo daaya dhaqaatiirta hawshooda ay qabsanayaan daawada ay siinayaan chemotherapy wax la dhahayo waay daawada ay wadaan inay saayaan inaan waxba laga walwalin metastasis maadaama la gaaray oo faafay aan ka wado in loo dhaafo aysan ka walwalin dhaqaatiirtii wixii jaa sameysanahay inay hawshooda dhameystirtaan ayaa aad u wanaagsan lahayd gartay ma maqashaa walaal hagaag waxaan jeclahay inanta walwalaysa inaan kuu sheego ama nafteedii taadaba xasuusiyo dhakhtarka advicekiisa iyo dhaqaatiirtaadaba adoo raacaya waqul lan yusiibanaa ilaa maa kataba allahu lana rabbi wuxuusan qorin cidna kuma dhacaan waxa uu qadaro iyo in lagu sabrana kolley waa wax waajib aan wada garanayno marka insha allahu tacaala hawlwalina ilaahay baa idinla jira waa hagaag khad kale asalaamu calaykum hello hello asalaamu calaykum calaykum salaam walaal soo dhawo magaca walaal uma ibrahim aa la dhahaa waxaad jeceshaa inaad weydiiso dhakhtarka abo waxaan rabay inaan weydiiyo dhakhtarka xanuunkaas uu ka hadlayo inaan weydiiyo soo daa halo aw ibrahim warkaaga israacso fadlan teleefonkana igala soco maxaad jeceshaa inaad weydiiso dhakhtarka abo walaalo waxaan rabay inaan dhakhtarka waxaan u weydiinaya dhakhtarka anigoo walaashay baa waxay u dhimatay bowel cancer bowel cancer okay ayadoo 22 jir ah 2000 dhimatay marka waxaan weydiin lahaa waxayna ku bilaabatay xanuunkeeda sida maaragtay waxay ku bilaabatay iyadoo halkan la dhaho baabsiirka camal ay ku bilaabatay marka anigana symptoms noocaas aan isku arkay dhakhtarkana waa ka cabsadayna waxaas u sheegay ma iyadu hiddo ma noqon kartaa waxaan jeclahay intaanan su-aashaada dhakhtarka u gudbin insha allahu tacaala inkastoo caawa waxaan ka hadlaynaa aysan ahayn bowel cancer amase kansarka dhuunta ku dhaca ama waxa kale waxaan ka hadlaynaa kansarka dumarka naasaha kaga dhaca iyo weliba ragga oo in yar ah ayaanu ka hadlaynaa laakiin waxaan kuu sheegayaa cudurka baabasiirka la yidhaahdo inuu ku jiro liis aan hayno cudurraa insha allahu tacaala oo weega soo socda aanu fooda dari doono laakiin mawduucan wuxuu kusaabsan yahay naasaha oo kansarka ay ku dhacaan iyo in la kala dhaxli karo iyo waxa lagu garto sawirana noo soo socdaan calinaaji ka codsan inuu soo daayo marka saa la socoyaa umu ibrahim waxaan cabdixafiido waxaan rabay inaan dhaho maadaama walaashii kansarka uu ku dhacay oo xanuunkaas kansar isku bedelay kansar ay u dhimatay
wax sababa wax oo hidaha oo camal ma igu noqon karaa aniga aad iyo aad doctor ha waxay ka hadlaysaa maxaa la yidhahdaa kan ku dhaca mandhicirka weyn qaawul mandhicirka weyn marka asagana badanaa hadda wax walba cudurrada o dhan waxaa loo ogaanayaa inay dhaxalka uu aada u muhiim u yahay maadaama walaasha iyadoo yar ay u dhimatay haddiina calaamadaha tahay waxaa loo baahan yahay colonoscopy in la sameeyo biopsy la qaado taag lagu saaro ct scan howlaha inaad xishood haddii aad xishootid wixii adiga qarsatid way ku qarsanayaan laakiin wax weyna ma aha inaad colorectal surgeon aa jiro dhakhtarka qaliinka ee colon qalaya jiro kuwaasa investigation samaysana dhiiga lagaa qaadaa waa la arkayaa in wax problem jiraan marka waxaan walaali kula talin lahaa in aad samaysid sida ugu dhaqsaha badan aad la xiriirtid gp-ga si uu ku gudbiyo surgeonkaas ku heli laheed aad waqti qaadanayso marka si degdega ina waxa isaga samaysid waan sameey wado mo ibrahim walaal waxaan sameeyey ballantii aan samaystay waa gp-gayga maalin anoo bilid garaynayo oo waxaas aan qabay wuxuu arkay wuu gudbiyey marka la ii organize gareeyo lagelin rabay maxaan ku dhadaa way dhaheen meeshii baa cad ka qaadinayo wixii baaritaanka ay ii bilaabi rabaan waa cabsaday waa la cabsiyey Soomaaliya waxay dhaheen ilaah waxba iskama qosayaan isaga carar waa iska dhaafa ballantii uu gooyay maalintiiba marka waxaa igula talin lahayd adiga Umu Ibrahim haddii dad kale aad dhegaysatid hadalka ay ku nixiyaan mashaakil weyn aa jiro ummadeenana mashaakilka ay qabto waxa aysan cilmi u lahayn qof walba inuu faraha la gala kaas waa wax anaga caadadeena ah oo shaqo aan ku lahayn laakiin aniga dhakhtar ahaan waxaan kula talin lahaa inaad endoscopy colonoscopy samaysid biopsy samaysid haddana ayaga hadda marka dhiiga dhacaan ay kaa qaadaan ay raadinayaan then kadib markaas CT scan waxaas ay sameynayaan marka shaqadooda dadkaas in loo dhaafo hawsheeda ay qabsadaan adigoo shuur ah habeenkii aad seexan kartid adoon walwalaynin walaasha u dhimatay adoon dhehaynin ayaad helaysaa marka iska dhaaf dadka kale waxay dhahayaan qofan dhakhtar ahayn shaqadii ay soo dhexgalaya qof kale shaqo uu haayo anaa aqaanay ma wanaagsan waa mahadsantahay Ibrahim waxaan insha Allah taala ilaahay ka rajaynaynaa dib noo soo wacdin adigoo waxba lagaa waayo aad iyo aad u faraxsan walaashaan Allah u naxariisto walwalayn insha Allah marka haddana waxaa bilaabanaya masawiradii oo maxaan ku yidhahdaa sharaxayaan kan waa naaskii oo haweenkaas uu samaysan wuxuu ka samaysan yahay dufan oo asaa ujeeda cadaanka meesha yelowga nabar markuu ku dhaco stage uu leeyahay wuxuu ku faafaa lymphanode wax la dhacayo saana u samaysan yihiin waa intaas meelaha ujeedada oo qanjirada ah meesha soo deynaysa kan waxaa laga arkayaa qayb yar oo kansarka ka mid ah mammografiyada la saaro waaye qaybta ugu badan waa qaybta midig ee qaybta gudaha xigta hadba waxay ku xiran tahay aad uu kansarka ugu dhacaa wuxuu aadaa lymphanodyaasha oo unugyada difaacu aadaa wuxuuna leeyahay stage fara badan oo maro markuu 2 centimeter yahay way ka duwan tahay kan waa chemotherapy daawooyinka daawo ka mid ah sida loo siiyo waa chemotherapy oo caadi gacanta laga qaadan karana way jirtaa oo qofku uu qaadan karo daawooyinka kan waa maxaan ku dhahaa raajooyin lagu gubayo maxaan ku dhahaa radiotherapy kan cunugiyo naaska dhooqaya oo maxaan ku dhahaa caaniga ugu imaanayo meelaha qaarkood kana qaliin waaye inta nooca in la bixiyo qaybta kaliya in naaska dhan la jaro iyo in gabal la jaro tan Angelina Jolie oo laga helay baraka duwa sida haday dhakhtarkii sheegayo waaye nin la qalay oo naaska laga qalay kansar ku dhaca waaye masawirka kalena wuxuu sheegayaa kan marka calaamadihii hadda bilaabanayo oo ah in isku aragto haweenka inay isku aragto maxaan ku yiraahdaa nabar isku aragto maxaan ku dhahaa waxaana muhiim ah in self examination inay isku samayso marka calaamadaha ugu badan ee qofku isku arkayo waxa waaye nabarka xanuun badan ma laha ama uu lahaan karaa xanuun uu lahaan karaya tan kale qayb ka mid ah naaska ayaa waxay calaamad noqonaysaa waxay dhahaan maxaa la yiraahdaa oranjada ama liinta qolofteeda oo kale ayuu u ekaanayaa marka haddii calaamadaas arkana waa in dhakhtarka lala xiriiraa si degdeg ah haddii afka hore naaska uu dhacaan uu ka imaado noocu rabaa noqdo dhiig ha noqdo waxa noqdo ayagana si degdeg ah in ay kula xiriirto waa haddii isbedel skinka maqaarka ay ku aragto haweenka isbedel maxaa loo jeedaa doctor isbedel waxaan u jeedaa labada naas caadi ahaan qofka haweenka bishiiba hal mar waxaa wanaagsan marka ay qabaysanayso ama mar in ay self examination
isku samayso ay taabato haddii wax noodula ah ama ay taabato maxaan ku dhahaa wax nabar ah oo gudaha hadday taabato ay ku jiraan inay mar walba is examinaysa ayaa aada u wanaagsan isbedel marka waxaa dhici karo markii maalinta oo kale ay isku fiiriso muraayadii in naasihii ay normal yihiin skiinkii maqaarkii wax walba ay caadi yihiin bishii dambe oo kale markay fiiriso ee meel madow ay aragto ama redness gaduud ay aragto rash ama wax ay kasoo baxaan waa inay shakisaa kan ma jirin hadduu yimid marka isla markiina in waa GP-ga uga carartaa marka waxaa jira wax self examination lahaa oo every month ay iska wanaagsan tahay qofka inuu isjeegareeyo haweenka inay isjeegareeyaan ay iska ilaaliyaan inaysan ka xishoodin GP-gana ay u tagaan si dhaqso ah wax loogu sameeyo si mammografiyadii loo diro biopsiyadii loo diro waxaan sigaarka ay qaadanayaan sigaarkana la yareeyo shiishada la sheegayo oo hadda tirada ka badato Soomaalida dadka isticmaalaya asagan cirku sii galinaya kansarka marka kuwaas oo dhan inay iska ilaaliyaan doctor waxaan akhrinayay waxyaalo ku saabsan oo dadku ra'yiga ka haystaan naaska oo kansar ku dhaco waxay yiraahdeen haddii labadooda naas aysan isla ekayn miisaan ahaan ama muuqaalkooda uu kala duwan yahay waa inaad cagaha wax ka dayda arrintan maxaa ka jira maya taas ma qasab maaha badanaa haweenka dhala caadi ahaan labada naas markii lasu fiiriyo hal naasaa badanaa xoogaa yar weyn mana dhihi karo intaas percentage oo intaas ayaa ah laakiin inay kaas inuu ku rido ma birkee wax maalin walba ay arkaysa waaye kaas maaha isbedelka waa marka gaduud ha noqoto maas nabar ha noqoto dhicaan afka ka yimaada ha noqoto waxyaabaha qaarkood ay noqdaan ama barar wuu noqon karaayo mid kale wuu kasii weynaan karaa waa la dhici kartaa laakiin kan ka hadlayso waa wax normal ah haddii shaybkooda uu isbedelo sidooda ayagoo ah maxaa tala ah waa in hadiiba waxyaabaha shakiga keeni karo in shaybka hadduu bedelmay waxyaabaha waa inay si dhaqso ah ay la xiriirtaa dhakhtar haddii qofku inta joogo GP la xiriira hadduu wadan kale joogana dhaqaatiirta oo wadamada kale jooga meelaha qaarkood waxaaba helaysaaba dhakhtar specialist oo gynecology ama waxa oo aad la xiriiri kartid oo ku sheegayo oo maxaan ku lahaa balan ku sameynayo maxaan ku lahaa si examination lagaga qaado ugu dambeystii anagoo khadka telefoonada iyo emailada gudbayna Ibrahim hadalkeeda waxaa igaga baxay inay ka baqanaysay waxay dhahaan the unknown yani jawaabta lagu siin doono cabsi aad ka baqanaysid ayaa u diidaysa qofkii inuu dhakhtarkii tago oo ama wax lagu sheega mararka qaarkood waxaa dhacda ayada miisaalaan baa usoo qaadanaya lakin waxaa dhacda mararka qaarkood inuu qofku uusan dhakhtarkii tegin uu asagu naftiisa ku qanciyo waxba ma jiraan oo problemkii uu xabaalo laakiin wixii ay hoosta ka xumaanayaan xilli aan wax laga qaban karin la gaaro dadka noocaasa maxaa kula talinaya waxaa wanaagsan arin haddii ay kusoo foojogto intaad ka jeesan lahayd inaa qaabishid ayaa aada u wanaagsan marka haddii aad kasii jeesatid kolley mar kasta way kuu taallaa inaad ka hortagtid oo aad wixii aad samaysid wixii lagu dhaho aragtid ilaa marka aad la imaadid mashaakil xalaa jiro xalkii lagu dhaqaaqo oo intii wixii aysan wixi dhicin hadhow wax la sameeyo ama qaliin ha noqoto ama kemio ha noqoto ama radio ha noqoto daawooyinkii wixii ama hormones waxay rabaan ha noqoto oo jaal laga hortago adiga oo niyadaada ay degsan tahay laakiin saan welwelle ku noolaanaysaa hadhow metastasis ama hadduu faafo waxna lama qaban karo ma laga yaaba doctor inuu dhakhtarku dhaho waxaa ka walwashid ma jirto waxba kuma hayaan waa dhici kartaa marka inay tagtaan waa ugu wanaagsan oo lasoo dhaho waxba ma jiraan aad iyo aad ba umahadsan tahay doctor waa mahadsan tahay khad kaloo ku xiga asalaamu calaykum hallo soo dhawaal khadka t v-ga iska naaqas calaykum salaam hallo asalaamu calaykum calaykum salaam soo dhawaal magaca walaalo magacayga safiya lee dhahaa hay safiya muxuu ahaaye walaalo waxaan isku arkay labada naasa ay xanuunaye marka GP-gayga u tagay waa garta maxay ahayd GP-ga wuxuu igu dhahay wuu ii visit gareeyay intuu yidhi visit caadi oo meel walba ah wuxuu igu dhahay wax nabar ama muruq wax ama wax kuusan kuma jiraan marka maxay ahayd still waa xanuunayaa waxaan dareemayaa inside-ka pain oo xoog marmar wuxuu igu yidhi maybe qabow waa ku gale waa garta dhar adag xiro marka si kastaba waxaan dareemaa xanuunka still wuu jiraa
waa gartay waxaan rabaa inaad dhakhtarka iyo adigu wada hadashaan marka hore inuu su-aal ku weydiiyaa ka bixi khadka taleefonka doctor safiyo dhakhtarkii waa tagtay waa la jeegareeyey waxaa la yiri waxa ma jiraan asi wali waa xanuunayaan okay waxaan safiyo weydiin lahaa xanuunka ma waqti uu leeyahay oo imaado caadada ka hor caadada ka bacdi mis waxa iska socdo waa labada naas oo wada xanuunayaan muxuu ahaaye mar inta badan markii adi aan wiig joogo kale u imaadaa okay marka marna saa-id uu yahay xitaa haddaan riixo waxaan dareemaa xanuun riixitaanka aan riixo dhicaan ma leeyahay ya dhicaan may okay waxa oo painkiller xanuun baabiye ma qaadatay ha waa qaataa markaan saa-id noqdo xanuun baabiye wax ma tarayaan marka ya wax ma ku taraan ha wuxuu ii taraa wuu iga ba'aa haddana ayaa markaan joogo haddana xanuunku igu soo noqonaa okay waxaan kugula talin lahaa haddii suurtagelayso gp-ga asaga hadda waxa oo muhiim ah ujeeda ma laha laakiin in la sameeyo maxaan ku dhaha mammography bahashaan ay dhahaan at least inuu kuu diro in ayaa wanaagsan waa bahasha daai la istusayay oo lagu saaro oo la ogaado haddii waxa ay yihiin waxaa laga yaabaa mararka qaarkood hadduu guduud noqonayo ama bararayo oo xanuunayo mastita la waa infection oo naaska ku dhaca wax weyn maaha antibiotic iyo waxyaabaha qaarkood ayaa qaadan kartaa oo ku raysiinaya marka laakiin waa la hubsanaya mammography in lagu saaro oo dhakhtarka la discussion la sameeyo sida wanaagsan hagaag waa gartay waxaan rabaa quickly Twitter aan idin akhriyo Yasmin from Holland waxay leedahay xanuunkan naasaha ayaa xanuuni jiray bay tiri walwal iyo cudud fara badan baana ka qaaday kadib markii la ibaaray waxba laiga waayey waxaa talo la igu siiyey inaan kayshaliga noocaan xiranaya nooc ka duwan aan xirto markii baana iigu dambeysay dhabar xanuun iyo naasaho ay xanuunay tiri marka dumarka Soomaaliyeed waxay ku wacyigelinaysaa basically inay jeegarayaan inay xiran yihiin kayshali ayaga jirkooda la jaan qaadi kara hagaag doctor khadka telefonka dib ugu noqonayna assalaamu calaykum hallo assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته magacawlan nuurta hagaag nuura soo dhawow waan dhowahay maxaad jeceshahay tiraahday hallo haddii t v uu ka agbaxaya isma maqlayno soo ma ogid nuurto waxaan dhahayaa markaan umusha ah ayaan isku arkaa inuu okay sorry waxaan kasoo hadlaya Sweden nuura la yidhahaa waa gartay markaan umusha ahay ayaan dareemaa labada naas inay ibkooda idildilaacayo aada ii xanuunayo marka umusha bisaan ku arkaana waqti kale ma arko aada buu ii xanuunaa ilaa iyo maskaxda ay xanuunto okay marka taasaa daktarka weydii lahaya ku yara jir khadka nuuray doctore maxaan ku dhahaa markii ay haweenka ay leeyihiin uur waxaa isdiyaarinaya caanihii markay dhasho ilaah amarkiisa moogi waxaa bilaabanayaba caanihii inay afkii hore ay imaadaan cunugii asagana markuu dhasho ilaahay ja ugu talagalay programmeeyey cunugii isla markiiba uu naaska raadsanayo mararka qaarkood ibta hore ee afka hore ayaa doleelka ayaa wuxuu ka imaan karaa xanuunka uu ka imaan karaa wax aada weyn maaha daawona lagulama degdego paracetamol oo kale paracetamol waxyaaba khafiif ah oo xanuun baabiye ah in la siiyo moohe haddana ay la consultaarayso qof specialistikada ah mar walba aan dhalaay waxaanaan la kulmaa ina dhahdo asaga haddii teli fiicanna siin karo laakiin wax weyna ma aha mana aha kansar iyo wax u dhow kan waa preparation diyaarin oo cunugii loo diyaariya caanihii afkii hore ibtiya furmayso oo automatic ah waay waa mahadsantahay nuura khayr allah ku siiyo hagaag khad kaloo ku xiga هلو هلو السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام magacawlan والله مليون baa la idhaahdaa soo dhawo maliyun maxaad jeceshahay weydiisid walaal waxaan weydiinahay dhakhtarka waxaan rabay gabar yar baa waxaan naga bararay naaska waana yartahay waa 13 jir waa gar marka way baareen markii la baareen waxa la igu yiri adiga cudurka kansarka ma qabtaa laan ku yiri way ka baareen laakiin wax la miya ma qan wax saas tisho oo bararay waayo iyo dhakhtarku waa la qalahay marka dhakhtarka ii weydii waxaas
marka waxaa lagu yiri lam baa ku jira yani wax yar oo buuran baa ku dhex jira ha weli barar siyaada waa marka wixii waxaas laga soo saaraya marka lamti waxay tahay waa fahmi weyn ma la soo bixinaa marka waxay rukaade malyuun ha عبد الحفيظ تلفونك هديجن ان شاء الله حيوي والله دكتور مليون محل لها dhaqaatiirtu go'aan ma gaarin in nidaamkaas la bixiyaan ha walaalahay saas doctor bixin wala saaraya bay dhaheen marka jimcadii bay ahayd in la saaro jimcada qandha qabatay okay ha qandho iyo markay waxyaabo kala jiraan waa la baajiyaa qaliin kasta oo la sameeyay wax weyn ma lambo waa nabar oo gudaha ka soo baxayo probably waxayna u badan tahay inuu banaan yahay wax khafiif ah maaha kansar qof aad u yar waaye waxyaabaha qaarkood estrogenaha jirkeeda ku jira dhacaan ayaa laga yaabaa inuu xoogaa badan yahay marka wax weyn maaha hadday laamkan ay bixiyaan waxay u bixinayaan inuusan isbedelin ama mashaakil uusan aakhir uusan keenin ayay u bedelayaan laakiin gabar 13 jir ah mashaakilka oo kansarka iyo wax laga hadlayo xoogaa way ay kala fog yihiin ما هو بشيء قبل already way ka baarayay kullu ftigad markii hore way yaabeen waxay isleen maxaa waaye marka bararka siyaadada keenay laakiin hadda waxay dhaheen xanuunkaas waa ka ma ku jiro adbas dhacan adiga waxay ka jarjareen ishow marka way baareen already waxay dhaheen cudurka ka baqaysan ma qabto laakiin bararka laamka maarka dhakhtar maxaa way macnihiisa laam waa barar oo ka imaan karo qayb ka mid ah maxaan ku dhahaa naaska ha noqoto dufanka ha noqoto balki naaska dufanna uu ka samaysan yahay qanjirna uu ka samaysan yahay marka qaybta qanjirkana ha noqoto ama meesha ha noqoto labada nooc meed ka mid ah ayaa bararayso oo maxaan ku dhahaa sida buro yar oo khafiifa oo kala waayo aan wax weyn ahayn ama ahayn kansar meesha markaa taabatid ya meesha markaa taabato way adag tahay ha way adkaanaysaa kaas waa wax iska caadi ah marka way wanaagsan tahay marka waa qali karnaa soo maaha ha in laga bixiyo waay ha qayb allah ku siiyo dunya aqraba meeshana allah fi anagoo dhan aad iyo aad baanu ku soo dhaweynaa malyuun adii inantaa yartaaba waxaanu jecelnahay insha allahu tacaala iyadoo la qalayo caafimaad qabto oo ordaysa inaanu aragno waa hagaag khad kaloo ku xigay asalaamu calaykum hallo hallo hagaag doctor wado marka calaamadaha markuu qofka arko muhiim waxay tahay in si dhaqso ah markii hadda waxaa la gaaray oo in aad looga hortago cudurkan maadaama intuusan kobcin laakiin haddii oo la daahiyo mashaakilka aad u badanaya badanaa mararka qaarkood qofka naaska maba xanuunayso waxay kuugu imaanay dhabar xanuun dhabarka gadaal oo xanuuna ama meel kale oo xanuunaysa ama jiro caadi ah ay kuugu imaanaysa jaam markaas waa mar faafay oo aadaan waxba ka qaban karin haddii aad goysid xataa ama wax kasta aad siisid markuu jirka wada galo mashaakilka aad u badan yahay waa wax laga hortegi karo oo haddana meel fiican laga marooyo doctor fariintan aan ku akriyo waa nin weeyaan magaciisa ma doonay inuu sheego wuxuu yiri hilib baan leeyahay buu yiri marka hilibkaas wuxuu keenay buu yiri inaan yeesho waasuu hadalka u dhigay naasa yaryar oo maaragtay ciyaalka yar markay korayaan oo kale ah dabcan habluhu oola jeedaa cuqdad bayna igu abuurtay maxaad igula talin lahayd okay waxay ku xiran tahay horta daadiisa ku xiran tahay haddii labada naas ay yihiin oo qof weyn hadduu labada yihiin wax weyn ma jiro mashaakil ma jiro waxaa aada u daran ninka hadduu hal dhinac uu bararsan yahay ayaa daran oo aada looga shakiyaa laakiin cayilka wuu keenaa caadi ahaan in naasaha ninka ragga xataa sida ay soo bararaan marka welwel zaahid ah inuu ka qaada ma aha laakiin hadduu uu rabo inuu qalbigiisa dejiyana wuu u tegi karaa dhakhtar oo wuu tusi karaya waa hagaag telefonka ku xiga asalaamu calaykum hallo halo asalaamu calaykum calaykum salaam soo dhawow magaca walaasha doctorka waxaa weydiinaa saddex sano ka hor walaa saddex fatxiya ba okay weydii 3 sano ka hor walaal waxaa laga bixiyay ilmagaleenka haye marka ilmagaleenkii hadda waxay dhaheen mar kasta waa inaan kaa baarnaa haye 6 bil mar bay iswixiyaan marka 6 bil way baaraan haddana waa ii celiyaan 6 bil kadib waa ii celiyaan mar kasta way iswixiyaan way ifiiriyaan yani ma suurtagelaa
kasta in la suuxiyo oo la fiiriyo maya fiiri ma ugxanta may dhaafeen oo minka hadday bixiyeen ugxanta may baarooyiin haddii meesha minkii ay wala waxaan ku dhahay ugxanta u bedel ukuma ku dheh fiiri ukumaha meesha ay laga soo saara ma lagugu dhaafay oo minka keliya ma lala baxay minka keliya laga baxay halo waxa ay baarayaan waa ugxanta inaysan mashaakil wax u imaanin ayay baarayaan laakiin intee London ma joogtaa may wala Sweden lix bilood ka bacdi waa lagu siixinayaa waa la maqalina kugu samaynayaan way baaraan marka way isuuxiyaan markasta wax dhibaato ma ii keenin markasta isuuxiyaan lixdii biloodba hal mara lagu suuxinaa way ifiiriyaan adiga ma qof oo cabsanaya ah daraaddeed ku suuxinayaan oo adigaan u dul qaadanayna markay examination kugu samaynayaan maya waxay dhaheen ma gaarayno markaa danta anagu leedahay xanuunkay ka ilaalinayaan marka inaan ku suuxinaa markasto yacni markii oo danadii aan u lahayn ma gaarayno ay dhaheen dhib baa nagu noqonaya markaas waa inaan ku suuxinaa sahal baa noo noqonaya okay waxa oo biopsy ama inay talaali waxay sameeyaan oo ay go-aan ku gaaraan ma sameyn miya ayaga maya waxa wey daawada ma qaato bas ayaga la idaabeeyaan yani dhexdood waan ka shakiyay markasta way isuuxiyaan aan dhahayse wax u jira yani marka adigu ma suuxitaankaad ka walwalaysaa mise xanuun kaloo ku haya may xanuun dhamiyahay bas way ifiiriyaan mar bay xanuunaa wax yar oo aan dareen lahayn markii horena waa iga saareen dhinac baa ibarabsanaay dhinacii ilmagaleenkii iyo wixii dhana iga saareenba marka wax bay ka shakiyeen cancer iyo waxaas bay ka shakiyeen waa kuu socda ay dhaheen waa inaan ka gaadsanaa waa gartay caafimaad ballaaran ilaahay ha ku siiya sabir weyn aamiin dheh insha allah okay noqonaysaa waa gartay okay doctor waxaan qaadanaynaa laba telefoon oo kale dabeedna fartiin halkan ku qoran baan rabaa inaan dadweynaha soomaaliyeed la wadaago iyo taladaada insha allahu tacaala qof kaloo ku xigay asalaamu calaykum soo dhawo walaal magaca Amino. waa hagaag maxaad jecesha inaad tiraahdo Amino I just want to know okay, can I speak to the doctor please? Yes, speaking. Okay, thank you. I just want to ask a question. I've been suffering from period pains, and I take a lot of tablets, like for example paracetamol, and they get rid of the pain for a while, but then the pain comes back. So I just want to know the effects of me taking these paracetamol and what I should take instead. Do you want another medicine? Yeah, basically. She's also worried the side effect of those paracetamol. Okay. Paracetamolka, I hope in af Somali fahmaysa because I understand. Yeah, paracetamolka oo continuous loo qaadanayo waxay ku xiran tahay daadaadan way ku xiran tahay ayaga continuouska zaidka waxay keeni kartaa horta inkastoo daawada ugu fiican ee hadda macnaha xanuun ahaan loo isticmaalo side effectgeeda aad u yar yahay waaye paracetamol laakiin waxay keeni kartaa liver problem oo waxaa jiro cagaarshowga oo keena paracetamol ama ayaa jiro haddii la iska badiyo ayaa keeni kara marka sometimes I take like 8 tablets a day no too much waaye why investigation au sameyn weyday oo why waxaan xanuunkan zaidka u jira I don't know I just get extreme period pain so I thought it was normal no it's not normal waxaa u tagi kartaa GP-ga waxaa samaysane transfer ii samee gynecology aan rabaa inaan fiiriyo maybe gynecologist will make a good diagnosis and will give you a good treatment so ina paracetamol kan wax ku yeeli lahaa mashaakil ku keeni lahaa it's too much maalinta daqaatid marka waxaa wanaagsan in lagu gudbiyo gynecology properly aragtid examination properly martid markaasaytay ayaa go-aan la gaaraya wixii lagu siin lahaa ama wixii oo intervention la samayn lahaa do you know any other medicines I can take instead you can take ibuprofen but ibuprofen can cause maxaan ku dhahaa stomach pain waxaa la qaataa full adoo calooshaada buuxdo haddii aad gastriti waxaan ku haynin you can take ibuprofen
ibuprofen adoo ka bilaabaya slow dosage 200 meelahaas haddana go up to the 400 milligram aa qaadan kartid maalintii ilaa iyo you can arrive maxaan ku dhahaa 3 tablet oo kale waa qaadan kartaa ibuprofen stomach oo full ah. Okay. laakiin u tag Okay, thank you very much. Assalamu alaikum. Alexon, okay, Amina waxay ahayd qofkii u dambeeyay caaw nagala qayb qaatay barnaamijka doctor 30 seconds maxaa kusoo koobi kartaa intaan fariintan dadkan aan u akhriyo rabaa. Okay, 30 seconds waxaan dhahayaa cudurkan aad looga hortagay maxaan ku dhahaa cudur aad loola dagaalamo adduunka dhan dagaal lagu jiro haddana meel fiican u maraya marka in haweenkeena Soomaaliya waxay dhibaato u imaan lahayd intay qarsan lahaayeen waa in ay sida degdeg ah self examination u sameeyaan sida dhaqso badan haday wax arkaana calaamadaha aan sheegayn in dhakhtar GB la xiriiraan in wixii si dhaqso ah loo xalliyo barkay cudurkan hadii uu wax yar daaho wuxuu keenayaa wax metastasis la faafid oo jirka dhangalaa ah hadhow wax laga qaban karin marka waxaan dhihi lahaa inay ku dadaalaan caafimaadkooda ee mar walba bishii hal mar ay examination isku sameeyaan muraayada hor istaagaan palpation ay staabtaan ee arkaan markay qabaysanayaan oo kale ee miisaamaan wax alla wixii oo nabar ha noqdo ama isbedel ah dhaqsi ay GB-ga ama dhakhtarka ay la xiriiraan ayaan ku soo koobi lahaa. Doctor aad baan kugu mahad celinayaa. waa hagaag daawadayaal labadii wiig oo la soo dhaafay halkan barnaamijka Late Night Show aanu ka soo deynay ayaa waxa ay dhaliyeen labada barnaamij gaar ahaan kii u dambeeyay buuqyo fara badan ka dhex dhaliyay waalidiin fara badan ama guryo fara badan oo Soomaaliya dad fara badan oo toosh ku iftiimiyay waxaan idin sheegayaa marka koobaad haba yaraatee wax raali gelina oo aan ka bixinayno ama anigu aan ka bixinayo barnaamijkaas ma jirto ujeedada aanu kala hayno waxay ahayd inaanu ku wacyigelino bulshada Soomaaliyeed una hadalno dadka ayagoo aan hadli karaynin ciddii ka xanaaqaysa ama ka xun ama dacwo ka qabta waxay TV-ga Universal emailkiisa ku soo qori karaan dacwo dheer oo aniga igu wajahan oo aad ku oranaysaan waxa aad doonaysaan inaad tiraahdaan waxaan idin sheegayaa dadka emailada soo diro caytama xashiishkan ku dareynaa maxaa yeelay in la caayo ma ogolin in idin kale idin caayana ma ogolin haddii aad rabtaan in wax laga qabto ama dembi aan galay aad jeceshiin aad igu soo oogtaan simply waxaad samayn kartaan email qurux badan soo qora idinka oo pinpoint garaynaya ama saqiixaya ujeedada iyo dhibaatada barnaamijku idin keenay waa hagaag waxaa hameenkii barnaamijka ka soo hadashay gabar yar hooyo Soomaaliyeed oo dalka Norway joogta waxaan jecelahay inaan idin sheegay kadib markii wariyaheena Cumar iyo wariye kale iyo dad fara badan oo Norway jooga aanu u dirnay inay soo baaraan gabadha tiri ninkayga ayaa carruurtayda faraxumeeyay gabadhaas waxay sheegaysaa sal iyo raad malahan aabbahaasuna waa nin nadiif ah ahlu diin ah carruurtiisiina haysta xaqna u leh inuu carruurtiisa haysto maxkamadda sarana ay ku wareejisay gabadhaasuna way ku khaldanayd odayga ay ku masabibatay laakiin inay taleefanka nagala qayb qaadato barnaamijka nagala qayb qaadato sidaad idinku xaq ugu leedihiin bay iyaduna ugu leedahay waa hagaag wuxuu iga codsaday walaalkaas oo aniga gurigeyga iga soo wacay la soo hadlay laba arrimood oo muhiim ah oo ah inaan labada cajaladood oo YouTube-ka ku jira labadaba ka saaro saaxiib haddaad daawanaysid labada cajaladoodba waa ka saaraya YouTube-ka aad baan kugu mahad celinayaa nin qiimo iyo sharaf u saaxiib ayaa tahay sidaad ila hadashay qadarin iyo wanaag bay mudnayd sidaana ogow gabadha soo wactantayna waxay rabtay inay noo sheegto anagu maanaan ogeyn ilaa ay noo sheegtay waa hagaag dadka oranaya maaragtay TV-ga dadka kale oo ayaa warqado noo soo qoray oo ayagu oranaya waxaanu ka xunahay barnaamijka la soo daayay ummaddu isku dhexdhadanaya qaarkood ay aayado quraan daliishanayaan oo aan jeclaan lahaa xaqiiqatan inay dib ugu noqdaan tafsiirka aayadaha quraanka sida in alladina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fi alladina aamanu aayadaas dadka daliishanaya aayadu anagu ma aanan lahayn carruurta yar hal la faraxumeeyo adduun hal la qariba hal laga hortagaan lahayn marka aayadu anagayna la jirtaa bal tafsiirka adigu dib ugu noqo dadka ka dacwoonaya oo kala oranaya barnaamij noocan oo kala dani kuma jirto waxaan jecelahay kuu sheego haddii adigu aad jeceshahay ilmaha Soomaaliyeed inaysan la dhibaataynin oo aad ka soo horjeedid dhibaatada ilmaha Soomaaliyeed annaguna aanu nina dhibaatada ilmaha Soomaaliyeed laga hortago maxaa ka qaylisiinaya maybe barnaamijkaas ka dhex aragtay Allah knows best magacaygu waa Cabdixafiid Maxamuud Jaamac waxaan u mahad celinayaa Dr. Abshir iyo waxaan u mahad celinayaa Maxamed Biibay oo caawan nala joogo dhinaca farsamada Cabdirashiid Rashka Cali Naaji محمد سعيد الصحاف جبريل محمد جبريل انت انا كلكم كلكم دون تقوى الله مني والسلام عليكم ورحمه الله وحقاق سبحان الله
kiisas cudurkan la leeyahay faaska waxyaalaha ugu mid waxay tahay qofkii intuu cunayay iyo intii ka baxaysay baa kala badanaya waxaad halkaas ka arkaysaa gabdhaha soomaalidu inay aad iyo aad ma arkaysaa duntooda u fiican tahay dad qiimo lena ay yihiin sababta kiisas badan oo noocaas oo kaleeta baana soo maray cunuga marka uu bridge hoos lugaha keeno waa inaad gacanta hoos gelisaa oo kor u soo qaadaa kii shanaadee wadda ha caadi uma dhali karto waa in qalliin ay ku dhashaa laakiin dadka da'da agekaas oo dhalinyarada waxaa u badan cuduradan galmada layska qaadsiiyo ma arkaysaa waxaa ay diido waxaa kamid ah inaysan dumarku uurka qaadinin waa wax jira